sideen ku qaabilnaa bisha Ramadaan way kala duwan tahay xaaladaha ay dadku qaabilayaan bisha soon dadka waxa kamid ah kuwa ciyaaraha iyo tartamada isboortiga ku mashquula qaar kalena waxa ay waqtiga ku bixiyaan daawashada musalsalaadka iyo aflaamta iyo qaar kale oo hamigoodu yahay cunida cabida iyo dukaamaysiga dadka badankood waxa soo qaabila bisha khayrka ee soon balse waxa ay waqtigoodu ku bixinayaan hurdo iyo nasiino sidaas ayayna ku dhaafaysaa ayagoon waxba ka faa'iideysan bisha nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri hoog ayaa u sugnaaday qofkii bisha Ramadaan soo haleelay oo kadibna ay dhamaatay asigoo aan loo dambi dhaafin hadaba si aanan uga mid noqon kuwa hoog u sugnaaday bisha Ramadaan waxa laga maarmaan ah in aan cazimo adag iyo niyad wanaagsan ku soo dhaweeyno bisha Ramadaan si aan uga faa'iideysano habeen iyo maalin baaraadinta raali anshaha rabbi oo aan noqono sidii ruux galay beer ay ku yaalaan miro macaan oo ka soo qaata inta uu ka awoodo hadaba qorshe u sameeyo waqtigaaga si aad uga faa'iideysatid bisha Ramadaan oo ka bilow hadda ma ogtahay tirada saacadaha bisha Ramadaan inay tahay 720 saacadood 660 saacadood oo kamid ah hurdo cunid cabid booqashooyin dukaamaysi iyo wixii la midka ah ay naga baxdaa oo aysan banoo hareenin 60 saacadood oo u dhigma 5 maalmood mooye sida awgeed ogow in waqtigaagu qaali yahay ee ku beer dareen waxaan faa'iido ku lahayn ku dadaal in salaada taraawixda aad ku dukato masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay cidii imaamka la istaagtay ilaa uu salaada ka dhameeyo waxa loo qoraa ajarka qof habeenkii oo dhan salaad u taagnaa كديك أستانتها بشهر رمضان ما دافعش تكبيرة الإحرام يسدعني إنه أذان كدعو أديكو مسجد كوجر مويه بدأ أخرنت القرآن الكريم كوجانسو إن أدم يسوق يران هالمر هذا هدفك إن القرآن كتب برتد كنا عمل فشيد بشهر رمضان وحى كوجر طبعا هبين وآد أفضل بدن طبعا كهبين لو وحى كوجر هبين وكغير بدن كم بلاد بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب إن بدن أو إنك ميدا waxa ay ku mashquulaan habeenkaasi dukaamaysi iyo diyaarinta ciida sidaas daraadeed waxaan kugu naseexeynaa inaad joojisid wax walba oo ka mashquulinaya cibaadada bisha Ramadaan ku buuxi waqtigaaga dhikriga iyo ducada inta lagu gudo jiro bisha Ramadaan maxaa yeelay albaabada samadu way furan yihiin رمضان كوا مرتنا قصة فوله أن وناجينا سلوين تيسا يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب بشراك مغفرة بغير حساب